بسم الله الرحمن الرحيم sunta dibqallooca ama hangaraaluhu waa mid ka mid ah dareerayaasha ugu qaalisan adduunka inkastoo qaniyada dibqalloocu keento xanuuno badan khatarna tahay laakiin suntooda qiimaha leh ayaa faa'iidooyin badan u leh dhinaca caafimaadka kaalay oo ogow sababta hal gaaloon hadda waa hal gaaloon ama ku dhawaad 5 litir oo sunta dibqallooca ah loogu iibinayo 39 milyan oo doolarka Mareykanka ah hadda Soomaali nahay ganacsiga iyo dhaqaale samaynta waxa ka naqan bakhaar iyo carwo la furto cilmi buuranna uma lihin khayraadka kale ee dalka ka buuxa waana sababta maalin kasta garoomada diyaaradaha loogu qabanayo indha yar ama cadaan jawaano ku sita kumanaan dibqalloocyo iyo caasho bari ah oo ay soo urursadeen ganacsade muuqaalkan wakaad furaha fakhriga ku tuuri lahayd ila dhamayso soo mashan garay ganacsade aad ku talin lahayd inuu ka faa'iideysto fursadan dibqallooca waxa laga yaabaa saad magaciisa ka qiyaasi karto inuu yahay bahal xun oo khatar ah waliba waxaad qiyaasi kartaa xaaladda xanuun ee qaniyadiisa oo qaniyadiisu waxay keeni kartaa xanuuno badan waana xayawaan khatar ah Lead Stalker Scorpion waa kan ugu khatarta badan uguna qiimaha badan suuqyada caalamiga ah waana kan laga helo gobolada geeska Afrika si khaas dalkeena Soomaaliya magaciisa saynisku waa Lyrus swine queenstritus dibqalloocan Lead Stalker caadi ahaan wuxuu leeyahay midab huruud ah oo cirro ah ama jaale ah waxay leeyihiin jir fidsan oo u ogolaanaya inay ku dhuntaan dildilaacyada yaryar ee dhismayaasha iyo godadka yaryar waxayna ka yar yihiin cabir ahaan kana badan yihiin celcelis ahaan noocyada kale ee dibqallooca ama hangaraalaha suntiisu waa mid khatar badan noocan Lead Stalker-ka waxay ku nool yihiin waqooyiga iyo bariga Afrika iyo bariga dhexda waxaana marka qaar kood loogu yeeraa dibqallooci jaalaha ahaa ee Falastiin dibqallooci Umdurman ama dibqallooci saxaraha naqab inkastoo uu khatar noqon karo suntiisu aad ayay u qiimo badan tahay dhinaca caafimaadka sunta ka timaada dibqallooca ayaa ka kooban isku dar xoogan oo neurotoxins ah waana tan laga faa'iideysanayo inkastoo qaniyada makhluuqani aanay dili karin qof weyn oo caafimaad qaba laakiin waxay caafimaad ahaan halis gelin karaan caruurta yaryar dadka da'da ah ama kuwa leh allergiga khatarta ah suntani waa mid qiimo badan sababtoo ah qayb ka mid ah waxay muujisay suurtagalnimada daaweynta burooyinka maskaxda ee bini'aadamka oo ah cudurro khatar ah saynisyahanadu waxay kale oo ay sheegeen in la helay cadeymo muujinaya in qaybaha kale ee suntan laga yaabo inay gacan ka geystaan kor u qaadida insuliinta oo loo isticmaali karo in lagu daweeyo xanuunka macaanta kansarka burooyinka maskaxda iyo duumada dawooyinka lagu daweeyo ayaa iyana ah kuwa laga sameeyo suntan dibqallooca ah oo la socod dhammaan dawooyinka laga sameeyo sunta dibqalloocu waa dawooyinka dambe ee casriga ah ee hadda la keenay laakiin maahan kuwii hore u jiray sunta dibqallooca waa mid ka mid ah dareerayaasha ugu qaalisan adduunka hal gaaloon oo sun ah oo ka mid ah dibqallooca suntiisa waxay ku kacaysaa 39 milyan oo dollar halka gaaloonna wuxuu u dhigmaa 5 litir ku dhawaad waxaa jira sababo badan oo ah waxa kor u qaadaya qiimaha sarreeya ee suntan oo ay u horeeyaan marka hore sunta waa qaali guud ahaan sababtoo ah ma fududa in la helo warshadaha iyo kambaniyada soo saarana waa yar yihiin dadkuna waxay caadi ahaan ku soo saaraan gacanta oo intay isu keenaan dibqallooca oo meel ku kaydiyaan ayay sunta ka saaraan sidaas ayayna ku iibiyaan dibqalloocyadu waxay soo saari karaan ku dhawaad 2 miligram oo sun ah markiiba waana wax yar marka loo eego litirka dibqalloocyada Lead Stalker si gaar ah dhif uma aha oo maahan kuwa la helo inta badan qiimaha suntooda ayaa kor u kacday iyadoo ay ugu wacan tahay khatarta dheeraadka ah ee la tacaalidda iyo beerashada xayawaanka dilaaga ah waxay ka rabtaa cilmi iyo process badan iyo mataqaana qalab badan si aad u beerato laakiin anagu ma baahnin oo qofkii u baahan inuu arintaas samaysto asaga uun buu soo ururinaya jawaab ku qaadayo uu iibinaya isticmaalka badan ee la isticmaalayo suntan ayaa kor markaas u qaadaysa qiimaha sunta dalkeenu wuxuu ka mid yahay dalalka qaniga ku ah noocan dibqallooca ah ee aan ka faa'iideysan waa suuragal inaan ka samayno 100 milyan halkan wawac oo ku soo miishan gare saaxiib ah kula talin lahayd inuu noqdo ganacsade dibqallooca ah aad iyo aad baa u mahadsantiin haddii aad ka mid tahay saaxiibada ku cusub page-ka fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad page-ka like saarto muuqaalkan sii share garayso haddii aad ka mid tahay saaxiibadii hore ee nala joogay fadlan like saar muuqaalka siina share gare si aan u helno saaxiibo adiga oo kale ah